السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسبين waa dalka Yurub dhaca ee aad ku quruxda badan, waana mid ka mid ah goobaha ugu quruxda badan ee dhulka dushiisa laga hela. Halkaa waxaa iskaashtay aqoontii iyo horumarkii Andalus oo loo geeyay ilbaxnimadii reer Yurub, waxaana ka soo baxay dalka ka ee aan muuqaalkeena kaga hadli doono maanta hadduu Alle idmo. Hawlwelin waxaan kuu soo gudbin doonaa wax kasta oo dalkan ku saabsan. Intaanan muuqaalka bilaabin, like saar muuqaalka. Isbayn waa magaca asaasiga ah ama rasmiga ah ee dalkan dhaca koonfur bari fog ee qaaradda Yurub. Isbayn waa dowladda 52aad ee ugu weyn caalamka xagga badka iyo dowladda 3aad ee ugu weyn Yurub. Lacagta dalkan waa lacagta Yuroga. Badka guud ee dalkan Isbayn 505.370 kiiloomitir oo square ah. Dalka Isbayn wuxuu caalamka kaga jiraa kaalinta 3aad ee xagga dadka. Tirada dadka ku nool waxay kor u dhaafayaan 46 milyan. Caasimadda dalkan waa magaalada Madrid. Caasimadda dalkan ee Madrid waa magaalada afraad ee ugu weyn magaalooyinka Midowga Yurub marka laga yimaado Paris, Berlin iyo London, iyo sidoo kale magaalada afraad ee ugu weyn magaalooyinka Yurub xagga dalxiisayaasha. Madrid waxaa ku yaala xarunta xukuumadda, waxaana sidoo kale degan qoyska boqorka. Sidoo kalena waa xarunta ururada caalamiga ah ee dalxiiska. Luqadda Isbaanishka waa luqadda rasmiga ah ee dalkan looga hadlo, waana luqadda loogu isticmaalka badan yahay dalkan. Buurta ugu dheer ee dalkan Isbayn waa buurta Teed. Xadka dalka Isbayn. Dalka Isbayn waxaa koonfurta fog ka xiga buurta Daariq. Bariga iyo koonfur barina waxaa ka xiga Badda Cad ee dhexe. Waqooyi barina waxaa ka xiga Faransiiska. Waqooyi galbeed iyo koonfur galbeedna waxaa ka xiga Badweynta Atlantika. Barigana waxaa ka xiga Burtaqiiska. Waqooyigana waxaa ka xiga Gacanka Biskay. Xagga dalxiiska. Dalkan Isbayn waxaa loo arkaa in uu yahay mid ka mid ah dalalka ay door bidaan dalxiisayaasha caalamka, waxayna ku jirtaa kaalinta 3aad ee dalalka loogu dalxiis aadida badan yahay caalamka oo idil. 4.2% dadka Isbayn waxay ka shaqeystaan beeraha. Dalkan wuxuu ku caan baxay beerashada qamadiga, miraha, canabka, qudaarta iyo zeytuunta. 24% dadka dalkan waxay ka shaqeeyaan farsamada, waxayna farsameeyaan maadooyinka kiimikada, cuntooyinka, cabitaanada, dunta, dharka, baabuurta iyo farsamaynta macdanta. Dhaqaalaha dalka Isbayn. Isbayn waxaa lagu tiriyaa dowladda labaad ee caalamka ugu weyn xagga dhaqaalaha, waxayna caan ku tahay dhul beerashada, waxaana weeye dalka ugu horeeya galbeedka Yurub ee xagga beerashada. Intaa waxaa u sii dheer kobaca ballaaran ee uu sameynaya dhaqaalaha dalkan, weliba uu ka sameynaya xagga farsamada laga soo bilaabo sanadii 1950 ilaa hadda oo la joogo. Dalkan wuxuu si xoog leh ugu sii hormaraya xagga farsamada. Ciidanka Isbayn. Ciidanka qalabka sida ee Isbayn wuxuu ku jiraa kaalinta 19aad ee ciidamada adduunka ugu xoogga badan, wuxuuna ka mid yahay ciidamada adduunka kuwa ugu xooggan. Tirada ciidanka ee dalkan wuxuu gaarayaa 90,000 oo askari. Ciidanka hawada. Isbayn waxay leedahay 122 diyaarad dagaal ah, 122 diyaarad weerar ah, iyo 153 diyaarad rakaab, iyo 16 diyaarad oo helicopter ah.
iyo 153 diyaarad tababar. Intaan ayaan ku soo afmeerayaa muuqaalkeena maanta. Fadlan haddii aad wax ka faa'iiday, ha ilaawin in aad nagu soo biirtid haddii aad nagu cusub tahay. Halkan waxaan ku soo gudbinaa muuqaallo faa'iido iyo waxtar ku leh. Usbuucii waxaan soo gudbinaa 2 ilaa 3 muuqaal oo dhammaantood ah kuwo aqooneed oo wax ku kordhinaya keedka aqoontaada. Fadlan like saar muuqaalka lana sii wadaag asxaabtaada. Sidoo kalena ha ilaawin inaad ra'yigaada igula wadaagtid hoos commentiga. Intaan ku kulmi doona muuqaalkan kan xiga, waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.